waxaan ahay Xamdi Maxamed Cabdi xaaskii Cabdikariin Sheekh Muuse waxaan ka hadlayaa arrinta baarlamaanka Soomaaliyeed ay abaabulayaan ay u kala jaban yihiin ee ummadda Soomaaliyeed ay beenta iyo propagandada loo sheegayo baarlamaanka waxaan ugu baaqayaa ummad Soomaaliyeed ay xil u qaadeen ummad Soomaaliyeed ay magac u matalaan dawladana Soomaali meel kasta dariya dibadba waxay higsanaysaa dawladda federaalka higsanaysaa haddayna cadaalad samaynin ayagana cadaalad darro un baa ku dhacaysa walaal xildhibaanada walaal waxaan leeyahay ummad Soomaaliyeed xil bay u hayaan xaq bay u qaadeen madaxweynaha arrin aan farayn baa iyaga faran oo ummadda Soomaaliyeed xildhibaanada ay ku hiranayaan waxaan kaloo leeyahay xildhibaanada iyo waxaan ka codsanayaa wasiirada inayna farmaajo iyo khayr xil Soomaaliyeed dambe inayna haynin taasaan ka codsanayaa haddii kale waa cadow idinku maqan farmaajo iyo khayr hal bay idin dhibayeen habeen madow bayna ka wada gadanayaan hadda gaalkeedan dhaha soo dhiibay Soomaaliya oo dhan saqiir iyo kibir waan la hadlayaa waxaana leeyahay haddiina arrinta Cabdikariin Sheekh Muuse lagu dhigay aan laga hadlin oon laga dhiidhiin inay inagu wada dhacaysaa wallaahi oon wariyaan la deynaynin madaxweynaan la deynaynin seer wasaare la deynaynin xildhibaan baa la deynaynin airportka aadan cadaan ka wada jeebaysanahay waxa inoo wada jeebaysana waxa inoo wada yaalana muwaadilnimo weeyaan Cabdikariin muwaadilnimadkii baa lagu maagay tuu khiyaamo sameeyso oo tiri Soomaali baan nahay Cabdikariin dhiibtay marsiyo kale waayeen waa Itoobiyaan bay dhaheen isma laha sac wuxuu ku amsaana waa ma baa wuxuu ku hadlaana waa ma Cabdikariin cadow Itoobiya ahaa iyo Itoobiyaan buu ahaa isma laha walaal anaga aad baa dhibaato baan u dareemeynaa ilaa habeenka Cabdikariin la dhibay ilaa saacadan kula hadlayo xaqiiqdii haddaan ku sheego dhibka ay gaaray ma yara maalba marka dambayso waa ummadda Soomaaliyeed ay dhibaatada rag Soomaali sheeganaya ay noo geysteen haddana ay ku sii indhacadeen Cabdikariin inuu Itoobiyaan ahaa eragaas aniga Cabdikariin dhibitaankiisa iyo dhimashadiisa Ilaahay ba ku shaqo laakiin eragaas ay ugu darnaa aad iyo kula ilnay dhamaan xasalama Soomaalida meel walba joogto marka maanta meeshan waxaan hadlayaa aabay marka la xiray wuxuu kala kulmay xiritaankii aabay waxa qabtay Soomaaliyan dhiibtay Soomaaliya jirdil u geysatay marka Soomaalida waxaan ka codsanayaa intay baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa dib noo geystay waxaan ka codsanaynaa intay nala garab galaan sida aabeen noo soo badbaadin lahaayeen